marka xigta dabcan waan ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo dabaaldega iyo farxad la wadaagidda hambalyeynta ardayda kaalmaha soo galay dugsiga sare 12aad iyo fasalka 8aad sana dugsiyeedka 2022 marka xigta waxaan jeclahay inaan halka ka salaamo madaxda halka fadhido oo xildhibaanka ugu horeeyo iyo madaxda jaamacadaha la taliyaha wasaaradda waxbarashada Dr. Cabdishakuur ahna macallinkaygi iyo dhiinkayga kulliyadda waxbarashada jaamacadda Muqdisho aad aan ugu faraxsanahay maanta inaan hortayda fadhiyo laba arrinba waxaan isleeyahay ama hadal jeedinta kugu adkaata waa marka la fiiriyo madaxda iyo macallinkayga hortaagan iyo ardayda sida u faraxsan hortayda fadhida waxaa jirta mahmaah afmaay ah xildhibaanku way sixi doonaa umaleynaa haddaan khaldo hal libay aragaas meheladaas yani waa hal libaa arkaysa ma godlato macnaha marka intaa kadib runtii waxaan jeclahay inaan marka hore aan u hambalyeeyo ardada labada heer isugu jirto labada marxaladood fasalka 8aad iyo fasalka 12aad waxaan jeclahay inaan u hambalyeeyo waalidiintii soo barbaariyay kusoo tiir iyo tacbeelay waqtiga iyo juhdiga soo geliyay waxaan jeclahay inaan u hambalyeeyo macallimiintii iyo maamulayaashii dugsiyada soo barbaariyay ee heerkaas soo gaaray anagana farxad ayay noo tahay in aan maanta aan joogno dadaalkii iyo juhdiga aan bixinaynay iyo maamulka imtixaanka la xiriiray mira dhalkeedii inaan maanta hor fadhino anagana waxay noo tahay farxad iyo dhiirigelin bay noo tahay waxaa kaloo jeclahay inaan u mahad celiyo dhalinyarada Somali National Examination Award Soomaaliya oo runtii u istaagtay arrin ama shaqo laga yaabo inay ka jiifteen dad xilal u haysto mushaharna ku qaata inay ka jiifteen anagu aan ugu horeyna laga yaabo inay u istaageen aad baan uga mahad celinaynaa